السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوغوسلافيا waa dal dhici jiray juqraafi ahaan bartamaha iyo koonfur bari qaaradda Yurub qarnigii 20aad. Dalkan ayaa sameeyay sanadii 1918 kadib dagaalkii koowaad ee dunida. Waxaan la oran jiray boqortooyadii Serbia, Croatia iyo Slovenia. Waxaana markii dambe loo bedelay boqortooyadii Yugoslavia. 1941 ayay boqortooyadii Yugoslavia burburtay. Waxaana qabsaday hogaamiyihii Jarmalka Adolf Hitler. Yugoslavia ayaa ku jirtay gacantii Naziga intii uu socday dagaalkii labaad ee dunida. 1945 kadib dagaalkii labaad ee dunida ayaa dib loo aasaasay Yugoslavia. 1953 January waxaa madaxweyne ka noqday Josip Broz Tito oo ah hogaamiyihii midnimada Yugoslavia. sanadii 1963 waxaa laga dhigay dalka Jamhuuriyad Federaali ah, gobol kastana uu leeyahay maamulkiisa gaarka iyadoo lagu saleynayo qowmiyadaha dalku ka koobnaa oo kala isir ah waxayna kala ahaayeen Bosnia Herzegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia iyo Slovenia. Hogaamiyihii midnimada Yugoslavia Josip Broz Tito ayaa geeriyooday 4 May 1980 da'diisuna waxay ahayd 87 sano jir. xilligaas wixii ka dambeeyay dawladda Yugoslavia waxay gashay dhibaato dhaqaale mid siyaasadeed. burburkii Yugoslavia waxaa sabab u ah natiijo ka dhalatay khilaaf siyaasadeed oo markii dambe isku rogay dagaalo qowmiyadeed. natiijadii waxay noqotay in bilowgii 1991 dawladda Yugoslavia ay u kala burburto 7 dawladood oo kala ah Serbia, Slovenia, Croatia, Bosnia Herzegovina, Montenegro, Macedonia iyo Kosovo. haddaba xaalka sidee ayuu noqon lahaa haddii maanta Yugoslavia dib u midowdo? waxaanu si kooban u falanqeyn doonaa haddii Yugoslavia midowdo maanta sidee wax noqon lahaayeen annagoo ka eegayna dhowr jiho. haddii aanu ku bilowno dhanka populationka tirada shacabka ayaa noqon lahayd 21,410,000 oo qof, taasoo ka dhigaysa dalka tobnaad ee ugu shacabka badan qaaradda Yurub. waxayna booskaas kala baxaysaa dalka Romania oo shacabkiisu dhan yahay 19,500,000 oo qof. arinta xiisaha leh ayaa in tirada shacabka Yugoslavia 1991 ay ahayd 23.23 milyan. waxaana arintaas sababay kororka tirada shacabka hoos u dhacay. dhanka dhaqaalaha, GDP-ga Yugoslavia ayaa noqon lahaa sanadkii 191 bilyan iyo 45 milyan oo dollar. wuxuu noqonayaa dalka 53aad ee ugu dhaqaalaha weyn caalamka. xagga baaxadda dhuleed, Yugoslavia ayaa lahaan lahayd baddan 255,950 kilomitir square, waxayna isku baddow yihiin boqortooyada Ingiriiska. haddii aanu eegno dhanka luqadaha, luqadda Serbiska ayaa noqon lahayd luqadda ugu weyn ee shacabka ku hadli lahaayeen ama ugu yaraan fahmi lahaayeen. 35% ayaa ku hadli lahaa ama ugu yaraan fahmi lahaa luqadda Serbiska. waxaana luqadda labaad ee ugu weyn noqon lahayd luqadda Croatiska. 20% ayaa ku hadli lahaa ama ugu yaraan fahmi lahaa. waxaana ku xiga luqadaha kale Albania 11%, Bosnia 9%, Slovenia 8%, Macedonia 6%, Montenegro 1%, halka 10 soo haray ay noqon lahaayeen luqadaha kale. dhanka diimaha, shacabka ugu badan Yugoslavia ayaa haysan lahaa diinta Kiristaanka. 43% waxay ahaan lahaayeen Orthodox, 27% Catholic, halka 22% ay noqon lahaayeen Islaam. 8 soo hartayna ay noqon lahaayeen diimaha kale ama dadka aan diin haysan. dhanka military, budgetka military ayaa noqon lahaa sanadkii 2.2 bilyan oo dollar. waxaana tirada guud ee ciidamada active-ka iyo kuwa kaydka ah noqon lahaayeen 228,000. magaalooyinka ugu waaweyn Yugoslavia cusub ayaa waxay noqon lahaayeen sida tan Belgrade, Zagreb, Sarajevo, Ljubljana iyo Skopje. Belgrade ayaa noqon lahayd caasimadda Yugoslavia cusub, iyadoo sidoo kale hore u ahayd caasimadda Yugoslavia hore, waana magaalada ugu weyn tirada shacabka ugu badan ay ku nool yihiin.